shirkadda caanaha Ellis ayaa munaasabad casho sharaf ku maamuustay ciyaartoyga xulalka gobolada Hawd, Badhan, Sool iyo Salal. Munaasabadda casho sharafta ah oo loogu magac daray lis la wada leeyahay oo qayb ka ah dhiirigelinta ay shirkadda caanaha Ellis ay la barbar taagan tahay dhalinyarada xulalka gobolada dalka oo ka qabsoontay Hotel Mango Garden ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socday xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ee wadaniga UCID, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda. Ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay Maxamed Cabdi Qowdhan oo ah madaxa iibka iyo suuqgeynta ee shirkadaha SBI iyo Ellis, waxaana uu sheegay in shirkadahan ay qayb weyn ka qaadanayaan isdhexgalka dhalinyarada isla markaana ay dhiirigelinayaan guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliland. Shirkadda caanaha ee Ellis Dairies waxay mar walba diyaar u tahay dhiirigelinta dhalinyarada reer Soomaaliland. Waxaanu aad u jeclaysanay in 14 gobol ee reer Soomaaliland ee ciyaaraya kubadda cagta 8 gobol ee orodka iyo basketka ciyaaraya inaanu samayno casho sharaf haddii la yiraahdo annaka oo isdhexgelinina afarta jiho qoladii bari ka timi iyo qoladii galbeed ka timi iyo qoladii koonfur ka timi iyo qolada waqooyi ka timi baan oo isdhexgelinina caawa waxa inoo marti ah Badhan iyo Salal oo labada cirif ee ugu sareeyay ugu shisheeyay Soomaaliland. waxa kale oo iyaguna inala jooga gobolka Sool iyo gobolka Hawd oo iyaguna u bacdi dhammaan dhalinyarada ka qayb qaadanaysa koobka gobolada Soomaaliland iyo maamulkooda iyo madaxdoodaba waxaan rajaynaynaa inaan halkan ku marti qaadno sida ciwaanka iyagu dhigayana waa lis la wada leeyahay sida idin muuqata maamkii Soomaaliland halkan ugu sawiran oo dhammaan kubadii ka muuqdaan waxayna tusinaysaa in lis meel walba ay taalo, guri walba taalo, gobol walba taalo, degmo walbana taalo. sababtaas baan aanu sameynay in dhammaan gobolada oo dhan aanu casho sharaf u sameyno. dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay saraakiil ka kala socday xisbiyada wadaniga UCID iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan casho sharafta ah oo lagu maamusay ciyaartoyga xulalka gobolada Hawd, Badhan, Sool iyo Salal. waxaan ku hambalyeeynaa wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha iyo xukuumadaba in ay aqbashay dhaliishaydii cadayd oo ay qabatay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland. maaha markii koowaad ee kambaniga iyo tiimkiisa la shaqeynaya ay hawshan oo kala qabtaan. waxaan leeyahay insha Allah kuwa kalena waa u qaban doontaan. waanan ku hambalyeeynaa wasiirka iyo tiimkiisa. laakiin lacag badan oo xayeysiiska ka qaadanaysaan oo dadka ka qaadanaysaan baa jirtee war bilaa calag doorka dambe har inooga sameeyo iyo meesha caruurteenu bawaasiirta ka qaadaysa kulaylka ee labada duhurnimo la oranayo ku fadhiiso sibirka bilaa calag cashuurtaas yaan la waayay. kambaniga lis ilaahay barakeeyo ha noqoto mid Soomaaliland iyo cid kastaba anfacda wax kasta oo dadka ay ku celinayaan ilaahay ha ku barakeeyo maalkooda iyo adduunkooda aad iyo aad baan islaamaya. sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha gobolada Hawd, Badhan, Salal iyo Sool. waxaan leeyahay halku dhig aad u cajiib ah halkan ku qoran lis la wada leeyahay waan qaadaynaa waan naga ballano goboladii waan geynaynaa lis la wada leeyahay xafiisyadayadana waan ku dhajinaynaa sida bulshada soo booqata oo aragto kelmadda runtii annaga inta marka laga tagay Salal ahaan halkan caawa waxaan nala fadhidaa kooxdii naga badisay ee Badhan. kooxda waan hambalyeeynaa waxaanu leenahay guusha maalinba qof bay raacdaa waad ku mahadsantihiin inaad naga badisaan. jamaahiirta ka soo jeeda gobolka Hawd runtii iyo taageerayaasha faraha badan ee tarbuunka ruuxa waxaan leeyahay sanadka waxaynu diyaar garoobaynaa inaynu geyno gobolka xaruntiisa Balligubadle. waxaan halkan uga hambalyeeynaa ku soo dhaweynayaa gobolada afarta ee halkan jooga. waxaan leeyahay waxaan idin ballan qaaday reer Hadoodanahay afarta gobol iyo kuwa maqan buuhoodla ku jiro inaanu taageeradayada la garab taaganahay iyo shacabka gobolka Hawd ee aad arkaysaan miisaanku leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin.
farxad bay noo tahay inayna casunto shirkadda lis baa la wada leeyahay sawir ahaan waxa nagaga filan hoolka aanu joogno oo cad caanaha la cabayo oo cad waxaan ka sawiran karnaa inay shirkadda lis la wada leeyahayna ay sidaa u caddahay ugu dambeyn xildhibaan indho oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay mas'uuliyiinta shirkadda caanaha Lis gaar ahaan gudoomiyaha guud ee shirkadaha SBI iyo Lis waxaan leeyahay shirkadda Lis intii aad garanayseen way dhaaftay waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad Axmed Cismaan Geelle Faarax oo aniga saaxiibkay gaar ah martiqaadka uu sameeyay waxaan ka marqaati kacayaa laas qorayna waan ku cabay caanaha Lis talexna waan ku cabay saylacna waan ku cabay waan socod badanay waxaan aad iyo aad ugu horta mahadnaqayaa Axmed Cismaan Geelle Arab baa la yiraahdaa iyo reer Cismaan Geelle xafladda quruxda badan ee ku sharfeen ciyaartooygii gobolada ka timi Fahad Ahmed Kaariye Bulsha TV Hargeysa